بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة مركز دنيا كجوتان سو dhawaada mar kale iyo insha Allah taala muuqaal kale cusub. Insha Allah muuqaalkan waxaan kaga warrami doonaa ama wax weeye soo gudbin doonaa qaabka sawir caadi ah looga dhigo qoraal. Waxa jira mararka qaar wax laga yaabo cashar macallinku qoray oo ama aad samirada ku qoray oo casharku fara badan yahay gaar ahaan ardayda jaamacadda sheegaya oo laga yaabo inaan note badan aanad ka qorinin inaad hal mar sawirato ama su'aal ahaan macluumaad aad u fiican oo meel aad ku aragtay waad sawiratay macluumaadkii baad doontay haddana inaad waxa weeye iyagoo qoraal ahaan sawirka aad sawiratay hadhow toole isagoo qoraal ah inaad la soo baxdo oo dib u daawacato ayaa doontay oo aad u bedelato qoraal caadi ah oo hadhow toole caadi aad u akhrisan karto oo aad la soo bixi karto. Haddaba qaabka noocaas sidee loo sameeyaa insha Allah taala isla eegi doonaa. Marka ugu horeysa Play Store kaaga imanaysaa. Markaad Play Store ka timaado waxaad ku qoraysaa image to text. Intaa markaad tiraahdo dhowr buu ku soo saari doonaa application fara badan laakiin application inagu soconaa waa application weyn. Waa kay ku qorantay image to text. Ka markaad ku dhufato marka hadda imika waan yar xaray halkaas markaad saa ugu dhufato waad install gareyn doontaa waad soo dejin doontaa marka kadibna open baad oran doontaa. Open markaad tiraahdo wuu soo saari doonaa markaas markuu qaabka kugu soo baxo waxaad samayn doontaa halka calaamadda kamaradu ay ku sawiran tahay ee plus tire bartaas ku dhufan doontaa. Bartaa markaad ku dhufato halka waxaad ka soo gelin doontaa sawirkii ama sawirka markaa hada doonaysa inaad qaado isla markaas shayga aad doonaysa inaad qaado kamarada ku dhufan doontaa. Haddii sawirku kuu diyaarsan yahay mar hore aad hore u qaadatana qaybtan gallery-ga ku dhufan doontaa. Qaybta gallery-ga markaad saa ugu dhufato gallery-ga wuu ku geyn doonaa markaas sawirka qoraalkii adigu aad rabtay aad sawiratay ee doonaysay inaad wax weeye qoraal ahaan laga dhigo ayaad ku dhufan doontaa. Anigu su'aal ahaan kaasan ayaan ku dhufanayaa kaba soo qaad kadibna waxaan leeyahay kadibna tigtaan saaraya markaas halka tigta ayaan saaraya. Okay waka samarkis sawirkeena caadiga ah muxuu bedelay maxay qoraal caadi ah hadhow toole adun baa markaa wax ka bedelaya hagaajisanaya meesha ka qaldan marka waka qaabkaas markaa ugu bedeli kartaa kadibna waa maxay qoraalkii markaa hadhow toolada waad save gareysan karaysaa haddaad u baahan tahay waad koobiyeysan karaysaa xagga mad ku dhufani haddii kalena gaashay waad sii share gareyni ama halkan calaamadan plus aad ku dhufani kadibna waxaad oran doontaa qaybta share-ta dooran doontaa share markaad tiraahdo halkan wixii meesha aad ku darsanayso ayaad isku share gareysan doontaa marka qaybta marka wixii aad meel aad ku share gareysanayso ayuu baad intan mid ka dooran markaa haddaad note ka gashanayso haddaad meel kale gashanayso markaa qaabkaas aad ugu bedeli doontaa hadhow toole qoraalka ayarmad bartanka ka koobiyeysanaysaa copy baad ku dhufanaysaa kadibna waxaad gelaysaa meeshii aad doonayso inaad ku soo save gareysto qoraalkaagii word-kaaga ma tusaale ahaan soo geli word-kaaga markaad soo gasho document cusub baad soo furan doontaa kadibna qoraalkii bartan baad ku koobiyeysanaysaa markaa halaa ku koobiyeyso isoo kaaga kugu diyaarka qoraalkii imika hadda halaa kugu diyaarka hadhow toolada wax ka hagaajinaya meesha ka qaldan kadibna hadhow toole waad save gareysanaysaa markaas okay saasaad ku save gareysanaysaa qaabkaas lagu bedelaa aad iyo aad baad mahadsantihiin insha Allah intaan muuqaalkan mid la kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.